كفتك هو ترى مرك كفتك ماشي أنا جلسة قدوميها مركو قبتي يعني صوعي قدومي كفته منها waxaan gudoomiye waxaan maqlay mooshin baa la qabtay see wax yihiin markaasuu yiri way hor yaalaan mooshinka waxaan ku yiri see u egyahay wuxuu yiri balaan kugu soo celiyo warqadii uu saas u rogi way ugu soo celiyo wuxuu yiri numberkaas weey oo yaa ka dambeeya waxa ka dambeeyo dad waalaha ah oo la yiraahdo qabyo oo waxaan qabyada isla ogeyn waa qabyo waxaan ku yiri bal fiiri qabyo waxaan ku ogeyn wax walba haaf inay uga tagaane bal fiiri hadduu mooshinka dhan yahay in kale dib uu fiiriyey wuxuu arkay saxiixiyo la saxiixay 2017 tuhunka la qabana uu yahay dhammaadka 2018 waxaan ku yiri marka haddee see isu waafaqaysaa wuxuu yiri waxay arkayeen wax soo socda sanadka bacdi waxaan ku yiri khalad kalma ku jiraa waa isla ognahay waxa laga yaabaa qabyo badan meesha ku jirteen waa fiiri wuxuu yiri saxiixa waxaa ka maqan dateski oo waxaan ku yiri see dateski qofku ku iloobay hadduu qofka saxiixay see ku iloobay waqtiga uu saxiixay waxaan ku yiraahday maxaa kale oo ku jira wuxuu yiri dad kale oo waxa jira oo xanuunsan oo dibadaha jira oo aan ka warqabin waxaan ku yiri marka waayahay gudoomiye maxay tahay waxaan see wax u jiraan motif muxuu yahay maxaa laga dalleeyaa waxaan illa waaba sheegtay waa qabye wuxuu yiri hore wuxuu yiraahdeen qabye ninkeeda dhameystira waxaan ku yiri waayahay waa dhabi qabyo ninkeeda dhameystireen taas 2016 soo ma ahayn wuxuu yiri maya waa 2019 waayahay maxay rabaan marka ma weydiis waa weydiiyo yiri waxay rabaan waxaa ka mid ah guddiga hanti soo celinta in lagu daro ay iyagu maamulaan inay ka shaqeeyaan soo dhawaanshaha shacabka iyo dowladda inay dhamaystir ku sameeyaan wax alla wixii heshiisyo hore u jiray in maxaan ku rahdaa kanaalkan sheegay ayaan dhawey oo webi kasoo fatahay in la furo oo beerta loo daayo waxay rabaan uu yiri inay xoojiyaan ama ka shaqeeyaan xoojinta hufnaanta dhaqaalaha waxay rabaan uu yiri in ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan mushaahar bixinta tan ugu dambaysa waxay rabaan uu yiri inay sharafka ummadda Soomaaliyeed soo celiyaan waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh